taliyaha qaybta booliska gobolka Sool gaashaan dhexe Cabdirasaaq Maxamed Faarax oo shir sharaa'id ku qabtay xarunta taliska qaybta booliska Laascaanood ayaa ka hadlay weerar dable hubeysan xaaladda ku qaadan saldhigyo ku yaala magaalada Laascaanood. Taliyaha ayaa sheegay in wax khasaare ah ka soo gaareen ciidamada booliska isla markaana ay gacanta ku hayaan agab ay halkaas kaga tageen dabladaasi. xalay bar saddexdii iyo wax daqiiqado ayaa waxa ka dhacday saldhig ka mid ah saldhigyada meel agtiisa laga soo riday dhowr xabo rasaas ah. ciidanku saas buu ku riday may dhicin wax khasaare ah haba yaraatay oo halkaa ka dhacday ma jirin. cid saldhig timi ma jirin, cid soo gashay ma jirin, cid maxaabiiska daysay ma jirin. waxyaabo yar oo alaab ay siteen oo kaga carareen dhowr qof sidaan waliba xogta ku haynona dad deegaanka ah oo qolada daraagiska inay ahaayeen ayaanu tuhunsannahay waanu daba joognaa. waxaanuna jecelahay sida ugu dhaqsaa badan in sharciga la hor keeno booliisku gacanta ku soo dhigo. dadka reer Laascaanood ee deegaankan iyo dhammaan gobolka Soolba waxaan leenahay nabadgelyadiina ilaashada, isgarab taaga booliiska. runtii soo sheegmada iyo dabagalka iyo xogaha intaba waxaa ka qayb qaatay deegaanka oo si fiican booliiska ula shaqaynayay. warkaa la sheegayana wax ka jira ma jiraan, waa propaganda waxba tari mayso iyo been la isu geegeeyo wax la waxay tarisaa ma jirto. taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ciidan ka tirsan Puntland ay weerar ka geysan Laascaanood. wallahi ma jecli ninka Abubakar ina saxaafadda hadeer waxan bariyo odayga kilibkiisaas ku shaqo tagay uga jawaabi maayo kilibkiisa. Farxaan Maxamed Aydiid, Somali Cable TV, magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.